macradka xamdule national motors ee magaalada hargeysa ayaa dib u habeyn ballaaran ku sameeyey macradka gawaadhida soo dejiya ee xamdule national motors. macradkan ayaa halkiisii hore ka guuray ee u dhoweyd wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan, isagoo wakhtigana u guuray jidka dhinaca galbeed uga baxa magaalada hargeysa, gaar ahaana eeriyada sacaadadiin ee loo yaqaano buurta kala jeexan. sheekh ibraahim cabdi xuseen oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka waramay adeegyada kala duwan ee macradka xamdule national motors wakhtigan soo kordhiyey iyo dib u habeynta ballaaran ee ay ku sameeyeen. waxaanu sheekhu sheegay wuxuu daaran yahay iclaankan maanta aan isugu keenay 4 qodob. 4taa qodobna waxaa weeye kow inaanu ka soo guurnay halkii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta agteeda, oonu u soo guurnay jidka weyn ee galbeedka magaalada hargeysa u baxa intaadan gaadhin buurta kala jeexan ayaanu u soo gurno. dadka saa waanu ogeysiinaynaa, waanu ku wargelinaynaa. taasi waa qodob. ta kale labaad waxaanu soo kordhinay adeegyo cusub oo bulshada ah. bulshada waxaanu ugu bushaaraynaynaa geeska Afrika iyo Somalilandba inaanu safarro cusub keenay oo gaadiidka noocyadiisa kala duwana, isla markaana aanu soo kordhinay adeegyo kale oo kala ah qaybta mechanicalka iyo UC spare parts labadaba aanu soo kordhinay. qaybta mechanicalku waxay faa'iido badan u tahay bulshada. waxaananu bixinaynaa warranty waxa la yiraahdo ama garantiinka 6 months gaadhigaanu anagu iibinay eenu test karayno, oo warranty waxaanu siinaynaa ay ku qoran tahay test bay xamdule motors insha Allah. geesta kalena gudoomiyaha hay-adda wadooyinka ee Somaliland iyo egas wasiir hore Qaasim oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay mulkiilaha xamdule national motors. waxaanu sheegay inuu halkaasi ka sii labilaabo allana uu barakeeyo, isla markaana uu wadanka Somaliland ku soo kordhiyo wax badan. waxaanu yiri baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan. waxaan ka mid ahaa customerskii, dhinaca kalena waxa weeye national ee wadooyinkii iyo gaadiidkii baan nahay oo wax isku xidhan weeyaan noloshoodii iyo shaqadoodii baan nahay. bidnillaahi tacaala waxaan rajaynaynaa guul. waxyaabaha aad ku soo darteen ama farsamo ha noqoto ama qaabka mataqaana waa qaab tartana oo qof walba inuu wax soo kordhiyo si uu uga soo jiito dadka kale, oo aad iyo aad baan qodobkan u soo dhaweynaya. hornahay dhammaanba ganacsatada Somaliland hoo barakeeyay walba wuxuu gacanta ku hayay siiba qolada macradleyda ayaanu maanta munaasabadoodii joognay. Ibraahim ka mid ka yahay ilaahay barako iyo khayr ugu daro oo ka siiyo. ku bogaadinaya barnaamijka cusub ee uu halkan ka sheegay ee uu soo kordhiyay ahaa inay garantiin u sameyn doonaan dadka gaadiidka ka iibsada, kaasi oo ah muddo 6 bilood. xamdule motors qaybta furfurka iyo qaybta cagafyada wax kasta baabuur noocaad u baahataba ay diyaar ku yihiin. shaqaale gacan fudud oo soo dhaweyn waxana. xamdule motors waxa uu ka mid yahay macradada ku yaala magaalada hargeysa. waxa uu ka soo guuray halkiisii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ama Saba Hotel ee shacabka. waxa uu dhawaan u soo guuray wadada dhinaca galbeed uga baxda magaalada hargeysa eeriyada sacaadadiin, iyadoo halkaa uu ku soo bandhigeen qaybaha kala duwan ee ganacsiga sida gawaadhida, cagafyada, baabuurta noocyada raaxada iyo nooc kastoo la arko. halkani waa mid ka mid ah cagafyada ay ku soo bandhigay xamdule motors magaalada hargeysa. Umar Cali, Bulsha TV, Hargeysa.